ciidamada ammaanka ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa lagu wareejiyay madaxii sirdoonka ee maamulkii hore Cabdi Maxamuud Cumar oo ku magac dheeraa Cabdiiley kaas oo in muddo ah baxsad ahaa. ninkan la soo qabtay oo lagu magacaabo Mukhtaar Sheekh Suubane ayaa wuxuu ku jiray liiska xubnaha la raadinayo ee dambiyada ka geystay dowlad deegaanka Itoobiya. wararka ayaa sheegaya in ay soo qabteen ciidamada Somaliland xilli uu ku dhuumaaleysanayay gudaha magaalada Hargeysa. Mukhtaar Sheekh Suubane ayaa loo haystaa in uu geystay dambiyo isugu jira dil, kufsi, jirdil, maxaabiis xilligii uu ahaa madaxii sirdoonka ee maamulkii hore ee Cabdiiley. inta badan waxa ay Itoobiya xabsiga dhigtay madaxdii hore ee dowlad deegaanka oo uu ugu horeeyo Cabdi Maxamed Cumar Iley oo dhowr maxkamad la soo hortaagay. sidoo kale waxa lagu raad joogaa xubno kale oo baxsad ah kuwaas oo warqad soo qabasho ah ay u jareen maxkamadda dalka Itoobiya. tan iyo markii uu xilka la wareegay Dr. Abiy Ahmed ayaa waxa isbedelo ka dhaceen dalka Itoobiya, waxayna taasi sababtay in meesha uu ka baxo maamulkii Cabdiiley oo hay'adda xuquuqda aadanaha ku eedeysay in uu geystay tacadiyo xooggan isagoona la xiray 2018 kadib markii uu iscasilay.